السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ما أنت وحنيذن لو ذا قدونا حديث لقسوري النبي صلى الله عليه وسلم. وحان حديث كالنبي كسوري أنس بن مالك أو أها أذيغيه نبي نبت قلين حديث دوشي ساهاتي مددا 10 سنة. حديثك وحاصو صاري بخاري وانا حديث صحيحة. حديثك وحوين قراه الله يا haddii nagala helo 3 arrimood in aan helayno dhadhanka iimaanka ama macaanka iimaanka. xadiiska 2 jeer baan akhrinaynaa, waxaan ku akhrinaynaa carabi, kadib baan Soomaaliyeynaa Allah subhanahu wa ta'ala haduu kara noqdo. xadiiskan wuxuu leeyahay sidatan: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار. رواه البخاري. حديثك سيدا أن صو شيغني waxaa wariyay nabigana ka soo wariyay Anas bin Malik Allah kara noqdeen. Anas bin Malik wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri: 3 saddex shay man kunna fihi, qofkay dhaxdiisa ahaadeen ay ku sugan yihiin, wajada wuxuu helay qofkaas xalaawatal iimaanka dhadhankiisa. saddexdan arin qofka laga helo dhadhanka iimaanka buu helay buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam. saddexda shay maxay yihiin? saddexda shay waxay kala yihiin: an yakuna, inuu ahaado Allah iyo rasuuluhu, rasuulkiisa, ahabbu ilayhi, mid lagu kalgacayl badan yahay, mimma siwaahuma, waxa ka soo horay oo dhan. oo macnaheeda ah in Allah iyo rasuulkiisa wax kasta ka jeclaado. qodobka labaad wuxuu yahay: wa an yuhibba almar'u, inuu jeclaado ruuxa, laa yuhibbu, man u jeclaanayo illa lillah, ilaah dartiis moogiin. qodobka labaad waa in Allah dartiis qofka loo jeclaado, loona jeclaan isku qabiil baan nahay ama isku meel baan ka nimid inaan loo jeclaanin. qodobka saddexaad wuxuu yahay: wa an yakraha, inuu naco, an yacuuda, inuu ku laabto, في الكفر قالمد إنه كلابت إنه نعه كما سذا يكره ونعايه أن يخلف إن الغتورة في النار نارت. صدح دان قضب قفك هذا لقيه له وحود الدميي ونهلي معانك إيمانك. وحاني دي قضب كوبات الله يا رسولك سوى إنه وحكست كجعل هذا قضب كلابات، وإنه قفك وجعل الدر الله إنه وجعل هذا وإنه وجعل عن قبيلي إسكميلنا كي ماذين. qodobka saddexaad waa inuu naco, inuu gaalnimada ku laabto sidoo u nacayo in naarta lagu tuuro ama dabka lagu tuuro. marka xadiiskaas baan jeclaysta maanta inaan idin la wadaago kuwii ku dhaqmo oo maaragtay iimaanka macaankiisa dhadhamiina Allah naga dhigo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.